يبغى جيبوتي تراس الدنكوها كوي توصل عدد دنشوي مدة لقيت شوقو إلا شن بلود ملها أيا وحا يسوق قاعد ورقد شرنكا ciidanka militariga Nuux Ismaaciil Taani uu u gudbiyay xiraalinta guud ee qaranka madaxweynuhu waxa la yiri dadku way kala caawiya ayaan badan yihiin balay caawiya ayaan ka wala isku dhaafay balay madaxweynuhu hortuu ayaan daray marka wax dhacaan warad xun السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود الملك استود كداون سان MMTV واحد كسر دواتان برنامج كفجارة التلفزيون كأو تضبط كمرتين وجي هاي حلوان مصطفى خيرية أو كتر سان قولها وكيلة السمالان حلوان وجوهرين سدو عادي بدل ما سنت وانا دوية حلوان مصطفى مدة دلك الدبيدي سوق مقنعد دور بلوضة انت انا سفر كاجي حولها ويمن دوان واحد شاكت مركز سودكتي ان دعود لقا قد بيو طريقة عيدم كا قد بي أرنتهاس بالفافهين نقصي بسم الله الرحمن الرحيم عادي بنقول هذا علنا MMTV يوري اللقمان با أنا قوم دعوت ليجا قد بيجي مكا مدة لقيت شوقو إلا شن بلود ملها أيا وحا يسوق قاعد ورقد شرنكا ciidanka militariga Nuux Ismaaciil Taani uu u gudbiyay xiraalinta guud ee qaranka marka isagu dacwad ma gudbin karo laakiin xiraalintu ka codsanayay inuu xildhibaankaasi haddoo la ka dhigo waxaanu ka tirsanay ciidankii buu nagu kiciyey marka haddoo la ka dhigo inaad xildhibaanka dee noo eedeysaan oo golihiisa inoo geysaan baanu doonaynaa marka arrintaa qolada shirgudoonka golaha wakiilada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ayaa ila kulmo marka si bareefada bay ila kulmeen inuu arrinkaas khalad yahayna way arkeen inuu ceeb yahayna way arkeen waxayna hadduu alla ka dhigo jawaab igu siiyeen inaanan hadduu alla ka dhigo arrinka halkaa aanan dhaafin halkaa uu taagan yahay inaanan dhaafin insha allah bismillahi alkariimna arrinkan hadduu alla ka dhigo aan wax suuragal ahayn ayna hadduu alla ka dhigo arrin aan munaasib ahayn u ahaa xiraalihii guudna ay arrinkaas isla arkeen oo ay ka wada hadleen dee arrinkuna marka horeba waraaqda anigu waan akhriyey waraaqda xitaa cayb badan baa ku qornayd cayb badan oo dowladnimadana ceeb ku ah shaqada uu hayana ceeb ku ah qodobo siduu dadkii dacwadaha oogi jiray isagu ayuu qodob adeegsanayaa xildhibaanka waxaan ku haysanaa inuu qodobkan ugu gafay wuxuu kaloo aan aada uga xumahay inuu waxa uu ka hadlayay uu ka cabanaya aan u gartay inuu ka cabanaya waxa weeye doodii xaaladda guud aan golaha kaga dooday marka wuxuu adeegsaday kelmad ah xildhibaankaas oo hadduu alla ka dhigo barta miidiyaha mariyey arrimo ciidanka deelqaaf ku ah hadduu alla ka dhigo interview hadduu alla ka dhigo miidiyaha ka maagay ciidanka marka dee waxay ahayd un golahay markaa taasina lafjab ku haydo general assemblyga golaha marka xildhibaanku fadhiyay uu doodayay dood xaalad guud ka doodayo ra'yi wax alaaliyo wuxuu ra'yi ka qabay wuxuu hayu sheegaya marka inuu xitaa golaha qiimeyn kari waayay oo sharafta goluhu leeyahay qiimeyn kari waayay iyo marka xayndaabkii golaha lagu jiray inuu qiimeyn kari waaya waxay ahayd waxaanan isleeyahay inaan isagu soo qori baro malaynayaa in laga soo qoro laga soo saxay baan malaynayaa markaan dee sida aragtida markaan arkay nuxurka wuxuu qornaayeen nin mas'uul oo sheego qodob ma yahay waa ciidanku dee nagu kiciyay iyo ciidanku hadduu alla ka dhigo adigu ma xatamsan ma ahayn waxa weeye ciidanka miisaaniyadooda ka hadlay miisaaniyadda ciidanka isagoo loo maamulo iyo anigu dadka aadka anigu askari bay dhalay abahay waa ciidan waa korneyl ciidanka ciidankana aad baan u jecelahayo waan qiimo gaara buu leeyahay weliba deegaanada ciidanka militariga u badan inay joogaan waa deegaankaygi weeye marka maalmihii inta ugu badan ba waxaan ku qaataa intaan halkaa tagaan bila ku maqnaadaayo maalmihii ciidanka la dejinayay iyo maalmihii colaadaha kale ehligee boqdharkan iyo ka dhaceen intaaba waan joogayo jananka dee hadduu alla ka dhigo 24 saacadood talisku og ayaan wada fadhinay weliba xooga badan oo aanu isweydaarsanay anagoo xildhibaano kala iyo isaga ah iyo saraakiishiisana waan
barayfasliyo waan dhowrayo aad baan u ilaaliyay marka ma yahay inay danta ciidanku ma ka hadlay marka danta ciidanku baa laga yaabaa saan uga hadlayay inaanay sidii si uu isagu habi ku ahaa inaanay ahayn xildhibaan hay'adaha ammaanka siiba ciidanka qaranka hoggaankiisa dhaliilada dhowr jeer u jeedisay dhaliilaha maxaa keenay ama maxaad ku saleynaysay aad iyo aad baad u mahadsan tahay horta dee ciidanku waa ciidankeeni marka koowaad inagayna ilaaliyaan sharaftooda inay ilaalilay tahay wanaagooda inay ilaalilay tahay horumarkooda iyo noloshooda inaynu kii ra'yi ka geysan kara ra'yi ka geysto kii wax ku biirin karaana ku biiriyo waa muhim aniga kuu sheego waxaan kugu wuri ilaa August wixii ka dambeeyey xildhibaan iga badnaa deegaanka iyo ciidanka iyo hawshooda ma jirin nimanka wasiirada ina way ogaayeen oo 24 saacadood 10kii wasiir xukuumadda soo dirtay iyo xildhibaano sagaalo golaha iyaga ka tagay oo dadkii deegaanka dadkii wada fadhiyay maalin walba dejinta ciidanka 99% bana annagaba ka qayb qaadan iyaga waaba la erinayay markii aan tagay meesha oo hoggaanka ciidanka iyo maba tagi kareenin markuu ciidanku xaaladdu ku timi niman ag mari karayo ma yahayn laakiin anagu de anaga dalka iyo jiritaankiisa ku lahayn war guushu waa yoomul laka wa yoomul ghayrka marka raganimadu waa inay yaradacayaha ku adkaysaa guulo badan baa soo socda dee jiritaankii umadnimadii inaydun u dagaalamaysaan shakhsi u dagaalamaysaan marka luqmaanu bimacna alkelima anigu xogta aan soo arkay haddaan iminka ummadda la wadaago waxaa suuragal in dad badan oo Somaliland aan moralkooda dhaawaco marka waan dadowraya laakiin nimanka ciidankii ee dhalinyarada u badan niman sharaf leh niman degan niman ixtiraam badan ka muuqdo niman dee noloshooda marka dee la eego iyo qanaacad ay ku qanacsan yihiin aad iyo aad u fiican weeye laakiin waxaan arkay inaan hoggaan hagaagsan oo dee waxa weeye sidii ay ahayd u maamulaya inaanay la kulmin nimanka ayaan dee garwaaqsana waan ku qanacsanahay waana hadduu alla ka dhigo waxyaabaha keenee waxaa ka mid ahaa maalintii berigii miisaaniyadda la sameynayay ayaa janarka ciidanka militariga guddiga dhaqaalaha u yeedhay weliba 2 warqadood bay u direen doodaydii aan ka hadlaynay way ku jirtay arrinkaa aad waxaa u waday ciidamo madaniya oo weliba deegaankeega ah oo ciidanka qaranka u noqday sal ay ku fadhiistaan u noqday oo deegaanka kasta jooga oo kumanaana ayaanu gelinaynay ayaanu anagoo dowladnimada eegayna in dastuurka la ilaaliyo dowladnimada ciidan qaran oo kaliya jiro iyagu waxa weeye tababar helaan xuquuqa ciidan helaan dalkoodana difaacana nagu eegayna waanagii miisaaniyadda inaan ku darnay isku daynay markaas si xog badan looga helo jananka oo hadduu alla ka dhigo waxaa jiray ciidanka waxna dee waxyeelaa soo gaadhay wax ciidanoo meesha ka baxay baa jira rag dhaawacay baa jira rag dhintay baa jira rag ciidan ahaayo mushaar inaga qaadan jirayoo waagaa la joogay sanaag beri la joogayna ka baxayo ciidan ka tegay Puntland galay iyo kuwii ciidankeena dhabar jabiyey laayibay laascaanood joogay camuudda ka badnaa wixii oo dhan ayaa badan marka xildhibaanadu waxay isku qanciyeenna waa number ciidan oo camuudda ka badan baa ka baxay ileen kuwii gaadiidka watay nuuxtaan markii nagu lahaa waa ciidamadeena iyo calanka Soomaaliya ku xidhnaa kuwaas waxay dad mushaar laascaanood soo galay marka anagu taa ka faa'iideysan nidhi taliyaha inaydun waraysataan guddigiina dhaqaaluhu oo aydun weydiisaan ciidanka hadduu halka miisaaniyaddooda wixii loogu daray si loo helo miisaaniyadda ciidanka si loo hubiyo at least xitaa ciidankaa baxay marka la eega camuudda ka badnaa iyo miisaaniyadda wax lagu dari karayo xitaa in kororsiimo ciidanka mushaara in loo samayn karayo dee waa in lagu saleeya xogta laga hayo taliyaha oo dee la waraystaayo ay dee negotiation ka soo baxda arrinkaa taliya uu iman waaye 2 kulan iyo 2 warqadood ee u tegayba uu ku iman waaye waxaa marka halkaa nooga soo baxday inuu wax uu qarinayaa ay jirto oo maxay ودي ميزانية دي تصرف كغير شرعي ومعمولها ودي أنا هدول كده ودي اللي وحنو دونني والميزانية دي لها يو وحوي هدول كده قلنا لش عيدا كيو بقول قلنا يريرو لقاطو عيدا كو هدول كده ظروف الميزانية دي كتشرتها بجت كميزانية دي وكتشري يو نلشوا أنا يديسكم مقال هين marka taasaad aanu waxa weeye warkii ahaa xog la heliyaba tala la hel ayaa naga warka iyagu ahaa markii arrinkaas yimi markii kadib uu janku iman waayay waatii xaaladda guud ee goluhu furantay
khasab bay markaa noqotay inaan bulshadii la wadaago waayo annaga laftarkaygu markaanu constituency-ga bariga marka aan dee ka soo jeedo gobollada bariga oo dhan ee ciidamada madaniga yihiin dadkii deegaankayga ahaa inaad soo doortay yihiin ee maalin walba ay nala soo hadlayaane duruuftoodiina weydiinayaane miisaaniyaddii ma laku dirayana weydiinayane aanu rajo u muujinayno rajadii aan u muujinaynay hadduu nuuxtaan ay ka dhaqaaqi weydo iyo xukuumadda ay u aragto hadduu alla ka dhigo dadkii mar ciidanku deegaankay difaacayaan oo deegaanku waa deegaan somalilan marna qarannimada iyo jiritaanka dalkay difaacayaan intiiba laguma ixtiraamin waxaa weeye waa taa miisaaniyaddii markii dambe aan ku darnay lasoo ceshay tii awdalna waa lasoo ceshay waxaanu arkay dan baanu arkaynay aragtidaanu ka duulayna waxay taa awdalna waxaydna xukuumaddu had iyo jeer inta ay dareen abuurto kakan oo ay dadka caadifad geliso mana soo dabaali taqaano mana maarayn taqaano marka waxaan isu lahayn alwaqaayatu khayru min alcilaaj baa layidhi ka hortagaa ka wanaagsan daaweynta marka waxaan isu lahayn dadku hadduu inta uu wax tirsanayo ee uu hadlayo ee uu si silmiya u hadlayo haddaan waxaa weeye aragtidooda iyo aaraadooda la dhegaysanoo laga jawaabin waxay noqonaysaa hadduu alla ka dhigo maraan waxba laga qaban karayn ayaa dhacaysa marka dee waxaan u arkaynay un hadduu alla ka dhigo janankaasina dacwadiisa dacwad raqiisa bay ahayd markaa ugu dambeyn halkii waagaa ku dabisin waxaa la leeyahay xildhibaan xaabi marka laga imaado oo guddida joogtada golaha loo gudbiyey dacwadiisa oo ay hayaan mustafa kheere iyo xeeldheeraa ka mid ah dadkuna maanta aad soo degtay arrintaad ka hadashay isla taasii mooday maxaad ka odhan lahayd wallaahi inaad aad baan uga xumahayo anigu maalinta horta jawaabta u dhaafi maayo anigu horta nin sharciga yaqaana baan oo backgroundkaygu golaha inaan imaado inaan sharciga bartaa kasoo horeysay sharcigana waan aqaanaa waan ixtiraamaa waxaan isku aqaanaa weliba dadka ugu waayeelsan golaha iyadoo dadku laga yaabo inay dhallinyarada de arkaan oo dhallinyarnimo arkaan dadka ugu waayeelsan goolaha ee odaynimadooda ka shaqeeyana marka waxaa laga yaabaa hadduu alla ka dhigo waxaan ka hadlay un meelaan laga hadli jirin waxaa la yidhi ciidanka iyo dhaqaalihiisa ciidanka militariga iyo dhaqaalihiisa lagama hadlaa la yidhi halkaa dembi baa dadka ka raaca baa la yidhi marka halkaas maan ka hadlo halkaana imaka baaris baabaan wadaayo miisaaniyadoodaan ku jiraayo oo anigii yidhi taxanaanba ka dhigaya marka waxaa doonaya xooga sugan inaan markaan dee wakti dhow inaan la wadaago waxaanan u arkayey anigu danta ciidanka in anigu ahay baan u arkay danta ciidanka janankii inta loo yeedhay la yidhi bal janaraale waxaanu doonaa inaad waxa la weydiinaya ahaydna ciidankaanu doonaa noloshoodaanu doonaa dhaqaalaha ku baxaanu doonaa gunooyinka ay qaataan baanu doonaa miisaaniyadda gacanta lagu hayo miisaaniyaddaa loogu dhisi lahaa ayaga maadaama la arkayey in markaa waxay nagu taagnaa ay ahayd lamber 1 inay ciidanka qaranku hayeen oo dee difaacii dalka ku jiraan marka in noloshooda wax la iska weydiiyaa qof kasta waa ku jirta taasi maaha kicin maaha in xuquuqda ciidanka la raadiyaa kicin maaha ee waxaa kicin ahoo fadqalalaha ka waxooda cunaya laga yaabo in miisaaniyadoodii aanu sida ugu wanaagsan u maamulin ka kicinaya baabiinaya dhibtiisa iyo dhaawiciisa la arkaana waa imaka weynta marka ciidankana niyad wanaag baan u rajeynayaa maxamed abiib in dacwad iminka wallaahi ma arag waxaa laga yaaba inay barbaganda tahay baa laga yaaba ma arag shirgudoonkana markaan weydiiyey waxba kama jiraan bay igu dhahday laakiin waa iska waa dacayad la sameeya laga yaabaa waxaa jirta dadkii ka hadlay maxamed abiib arrintiisa waxaa ka mid ahaa cali xamed jibriil oo gudbixin golaha gacan hadal baa saameyn weyn yeesho aada loo hadalhayo ahaa faratoon cid ma matalo bal adigu sideedoo aragta hadalkaa guddoomiye cali xamed jibriil ee ahaa faratoon cid ma matalo ciddiisa halkan ma joogto gef buu ahaa hadalkaasi gef buu ahaa dalkana gef buu ku ahaa ninkaa halkaa joogay odayga faratoonna gef buu ku ahaa somalilan oo dhanna gef buu ku ahaa golahaygana gef buu ku ahaa annaga ceeb nagu qof aan qofba matelin suu annaga noo mateli karaya qof aan kunstituwalsiba matelinoo suu noo mateli faratoon iyo xildhibaanada sool laga soo doortay ee joogay ama togdheer ka soo baxee dhulbahante markaan sbeshali afka ku dhufto waa dad cod ku yimi dad muusabixii soo magacaabo u shaqaynaya maaha cod bay ku yimaadeen in hadduu alla ka dhigo hanaanka maamul ee faratoon marka wax laga tirsado iyo nidaamkiisa maamul wixii dhaliil ku ah ee muuqdana in sideeda loo sheega weeye laakiin in la duro la yidhaahdo gobolkaasi cid ma matalo anigu waxaan arkay adiyad baanu arkay munaasibna maahayn mana ahayna wax faratoon dee lagu dhibayay maahayn waxay dalka oo dhan wax dhaawac ku abay ahayd anigu waanigii ka hadlaya yidhi in xildhibaan golaha wakiiladoo la soo eedeeyey cali xaamud inuu xildhibaan constituencygiisa weliba
oo la soo eedeeyo eedu timi in gudoomiye faratoon uu shirgudoonkii golaha wakiilada la wadaagi waayo uu ka mid ahaa cali xaamud gaf bay ahayd sharci darana way ahayd xaaraanna way ahayd intaaba way ahayd anigu siyaasadda intaan ku jiro dadka uma nacmaleeyo dadka siyaasadda inay nacmaleeyaan oo qofkan aragtida ku wada socona hadduu markuu dar jiidho meel khaldan jiidho ayarse waan ku idhahdaa marka waxaan u arkayey inaanay qabanaynin dee cali xaamud dareenkiisa anigu arkay dareenka ka keenay cadhada ahi waxaa weeyana nin shirgudoonkiiya saddexdii xubnood shirgudoonka ka mida xildhibaan gobolkii laga soo doortay waxaa weeye ka mida oo konstituensigiisiya in lasoo eedeeyo uu ogaan waayo gudoomiyihii u sheegi waayo wax wada shaqaynta dowladnimada ku wanaagsan may ahayn wax golaha iyaga iyo wada shaqayntiisa ku wanaagsan wax shirgudoonka niyad samidiisa ku wanaagsan may ahayn wax sharciga ku wanaagsan ma ahayn marka arrinkaas dee wuxuu ahaa gaf uu ahaa isagu laakiin inuu dee saa u yara fogaaday isna ma ahayn ila ilaahay baa ratu jecelahay waxaa weeye gaalka dil balay gartiisana sii laascaanood iyo buuhoodloo ka mid ah deegaanadu matalo faratoon soo gacanta somaliland kama maqno dee hadday ka maqan yihiin ma faratoon bay ka maqan yihin somaliland bay ka maqan yihin faratoon markii laga dooranayay faratoon ma burca laga soo doortay maa laascaanood laga soo dooranayo deegaanadaa tirinayso dhan maan codka uga iman waanu 5 kun oo konstituensigiisa soo dooran waxaa weeye waa gaf weeye dhibtaa dhacday ee sool inay naga maqnaato waa dhib sababteeda xukuumaddu leedahay marka anigu waxaan u arkaa dhaliil xukuumaddu leedahay in dee faratoon la saara mahayn faratoon waxay lagu dhaliili karaya haddii labadaa kala anigu dadka faratoon dhaliilsan baan ahay marka dadkii doortayna waana laakiin waxaa lagu dhaliili karayaa faratoon hanaanka uu golaha u maamulayo ayaa kuwa shidmaa kala gelinaya laakiin dee taasaa ka mid ah in xildhibaan la soo eedeeyey in gudoomiye ku-xigeenkii labaad ogaan waayo may ahayn wax sax may ahayn xitaa xildhibaanku inuu ogaaday heedo u yeedho robalyadanaa la soo jeediyey maxaa doodaada iyo tale maxaad qabtaa iyo maxaa inuu yeela uu dee tale weydiiye laakiin arkaa inuu yeelo may ahayn gudoomiyaha iyagana hadduu alla ka dhigo waxaa weeye arrinkaasi waa dee nin waayeela weeye wax badan oo horta hadduu alla ka dhigo weliba anigu ragga dhaliisha aan kala waabanna waan ahay waxyaabaha khaladaadka ah ee keenaya kalsooni darada gooluhu inuu kalsooni darada u qaado waxaan leeyahay inuu dib isugu noqdo weeyo arrimahaas waxa weeye goolaha immunity baan wada leenahay karaamada uu leeyahay shirgudoonku noqdo annagaa saarnay muuse biixiyo xukuumaddiisu may saarin marka inuu golihiisa ixtiraamo weeyo oo golihiisa dhaqdo oo golihiisa qadarinta ugu koobaad siiyo ma marka gudoomiyahan intaasaan leeyahay arrinkaas inuu gaadho mayahayn laascaanood iyo buuhoodle waa deegaan somalilandna waa deegaan inaga wada maqan waxayna u baahan yihiin hadduu alla ka tala qaranna in laga yeesho xukuumaddanna hadduu alla ka dhigo dhaliishii wixii halkaa ka dhacay 99% iyagaa leh iyadaa dalka dayacay iyagaa ku soo daayey ciidamo hadduu alla ka dhigo calamaan sita iyagaa ummadda hoosaasiyey in maanta haddii cid maxkamadda saarayo iyo haddii cid la eedaynayo waxay intii laascaanood joogtay dalka qaranka dembi ka dhacay 30 sano inuu dowladnimo ahayn wax ka weynoo ka dhacay nuux taani iyo tiimkii halkaa joogay ee inaga dhaadhicinayay iyadoo ciidamo calankii soomaaliya wata lahaa waa ciidamadii somaliland oo annagaa marnay maanta in la weydiiyay la yidhahdo ciidankii somaliland berigaa marteen orda u yeedhan lagu dhahday marka wixii wax laayeyna ee ciidankeenii waxyeelada u geystay ee hadduu alla ka dhigo dee iyagay ahaayeen kula xisaabtamay wasiiraha ka mid ah dadka meesha joogay ciddii khalad kaa samaysay maamuska xabiin maxaad ugu siman dowladdu horta dee limitka sharcigu wuxuu nu ogayana waa jiraan annaga laftarkeeguna niyo markay maqaadiirtaasi dhacday ee dalkay ku dhacday turaalo badan baa dalka iyaga golaha waxaa la idhahdaa waa niman dhallinyaraha waa niman fudud wallaahi ilaahay baa iga hadlinaya turaalo badan ragga qaar waxay ka wasuusayeen in doodaa inta loo yeedho mas-uuliyiin marba la weydiiyo oo wixii lagu soo celceliyo taariikh xunoo ina soo martay bahayd marka taariikhdaa xun in lagu soo celceliyo oo dadka qalbigooda marba dee waxaa weeye la xadanteeyo oo la dhahdo wixii laascaanood ka dhacay waxaan u arkaynay gaf xunoo dhacay oo yahaana ahaa oo kuwa dalka hayaa geysteen laakiin inaanu shacabka qulubtooda la ilaaliyo la dhayo aan wixii la dareensin waayo waa la hoosaasiyey muddo 9 biloodaba halkaa ciidanku waxaa weeye habaqle ku dhimanayay oo maalinba labaad tala soo dilay oo tale la diiday oo arin la diiday oo tala xumadiina waa taa halkay ku dambaysay inuu ognahay marka wixii dambe in arrimaha national issue-ga qarannimada taabanaya
in talo qofeed laga dhigo talo laga dhigo maaha ciqaabkii wixii ay sameeyeen nimankaa xukuumadda hayaana shacabkaa laga doonaya inay mariyaan baa laga doonaya oo doorashadaas markay timaado in ummaddu ay ka jawaabto wixii halkaa ka dhacay ciqaabkeeda inay la kulmaan baa la doonaya dhowaan ingiriiskaad ka timid xildhibaan dadka qaar markii aad soo socotay waxay lahaayeen jabuuti buu tegey kulamo ku galay dowladda jabuuti somalilan hayo xagga jabuuti la saftay oo arrimahinka maxamed qaarkeed xeeraalintu ku haysato ay ka mid tahay taa maxaad kaga jawaabi lahayd jabuuti transit baan ku ahaa 12 saacadood baan joogay diyaaraddan ila soo martay imaaraat baan soo raacay markii dambena jabuuti baan kaga soo wareegay waana hotel la yidhaahdo capitalna waan dego 12 saacadood aan joogay capital hotel markii dambena hadduu alla ka dhigo $166 waa iska bixiyey oo layga qaado hotelka markaa waa iska idab daro waa dadka xukuumadda afmaalada ah ee lacagaha lagu siiya cayda ummadda lagu siiyo xukuumaddan waa xukuumaddii ugu horeysay shahaadooyin ku bixisay soo dhaweyn ku bixisay qof dadka caayay mayadaa maanta ku eedan karta qof baa gafayo dadka cayda shahaadooyinka kuwa ku bixiyo weeye shahaadooyin bay ku bixiyaan maamuus bay ku bixiyaan dhaqankii bay naga xumeeyeen inanka bilaa camalkii inuu youtube furto oo facebook dadka soo caayo dee xukuumaddu wax kaga helayaaba ile waata dadka caayaya siduu wax ugaga helaya dee sootan maaha ma abaalmarintii iyo rome oo dhal bay noqonay dee dadkii dadka caayi jiray reeraa caayi jiray iminka guddiga deegaankayga laga soo doortay iyo salaadiinta kuwa ugu ixtiraamka badan ragga qaar caayo dee anigu aanan carabkooda ku dhufanayn oo aanan dee anigu asaagaygaba ahayn oo laga yaabo kuwa anigana ay barbagaandiinayay waxaasay wax ku helaan marka qofka caydayda haddii ilaahay ba irsaaqad ku siinayo waxaan leeyahay ilaahay kugu kordhiyaba inuu kugu kordhiyaan doonaa xildhibaan waxaa jirta madaxweynaha somalilan golihiina musabix wuxuu ku eedeeyey markaad muddo 2 sana joogteen hal xeer inaad ansixiseen maxaad ka horlaytaa madaxweynuhu waxaa la yidhi dadku way kala cawiya ayaan badan yihin baa layidhi cawiya ayaanka waa la isku dhaafay baa layidhi madaxweynuhu horta wuu ayaan daran yahay marka wax dhacaanna warad xun yahay sababtoo ay tahay madaxweynuhu warar khaldan baa loo geeyay oo ku go-aan qaata feedbacka ka soo noqdaana madaxweynaha mar raali geliyaan waxaa warbixinaha waa waxaa laga yaaba wax loo qorayo dadka kaalinaya ay u qoreen bayd baa laga yaabaa 22 xeer ayaa golaha iyagu ansixiyey arrimahaasoo kale inaad aniga weydiisaba maaha inaad arkiifyada golaha intaad tagto aad ilaan xeerka number baa ku qoran iyo taariikhdii la ansixiyey wixii o dhan baa ku qoran arrinkaasoo kale waa arrimaha laga doonayo inay warbaahintu baadho oo ay ummadda tusto madaxweynaha hadalkiisana soo jarto wixii ay soo aragta inay tusto dadka dabeetana ama anagu kuwa runta sheegayaan noqonaynaa iyo dad aan qaranka u shaqayn baan noqonaynaa iyo shaqadii iyo waajibaadkii lagu lahaa aan ka soo bixin ama dee madaxweynaha odhan maayo run sheegi maayo madaxweynaha war khaldan ayaa gaadhay marka 22 xeer baanu ansixinay golaha iyagu marka la eego golo wakiilo oo intaa jiray muddada aanu joognay marka la eego cid naga xeerar badan haddaad research samaysaan oo golihii hore markuu intayada joogay intuu ansixiye adeegtaan annagana adeegtaan xeer walba number baa ku qornaya taariikhi haddii aanu anagu ka badan weyno ka shaqo badan weyno wixii aan kugula hadlay baa waxa weeye dhammaantood aan waxba ka jirin marka waa iska ceebaha xukuumaddu golahan xukuumadda la colowday aad bay ula colowday haddaanu muxaafid noqon lahayn oo xukuumaddu waxyaabaha ay wadatay aanu dadejin lahayn niman waxaan noqon lahayn fariidaahoo qarannimada ilaaliyo oo sharaf laba noqon lahayn waxyaabaha aan aadka uga digayna waxaa ka mid a haddii aan xukuumadda dhaliilaheeda iyo toosmaheeda sheegnay khaladaadka ay gelayso inay xukuumaddu u aragto laysbarbardhigo waxna waa qarannimada somalilan iyo jiritaankiisa oo taasi waxa weye waa lama taabtaan madaxweynaha ugu sareeya la shacabku waa lama taabtaan waxna waxaa weeye systemkaa jira iyo dhaliishiisa systemkaa xukuumadda jire madaxweynuhu hogaamiyey iyo dhaliishiisa markaa systemkaa jira dhaliishiisa inay dowladdu u aragto wax qarannimadii laga horeyn iyadana waxay ku tahay aqoon la-aan sharci kuwa difaacayana waxay ku tahay waxaa weeye iimaan la-aan bay ku tahay qofku dee markuu iimaan la-aantu waxaa weeye qayb ka mida qofku markuu caqliga ka shaqayn waaye wuxuu difaacayaba garan waayo bal waxaad eegtaa su-aal baan ku weydiinaya bal waxaad eegtaa inta golaha cayd eeg inta golaha cayd waa inta xukuumadda taageertay meelaha wax looga turtuuro soomada rag qaar idhaahdaa goluhu $5,000 buu qaata inamada yarare $50,000 qaata horta qofku ay dhoolajiyada waxaa laga qofku wuxuu aaminsan yahay jecel yahay buu ka sheekeeya qofku hadduu lacag iyo
wax la cunayo waxaa ka sheekeeyo waa qof ay meel xun ka gashay ilaahay baa wax bixiyey 5 baad sheegaysaa 10 buu xitaa qofku dee inuu xishoon waayo beenta intaa le ka xishoon waayo oo dhaasho ku muuqata 4 ku muuqata waa waxyaabaha la doonaya inaad anigay weydiiso la dooni maayo ka afmaalka inaad weydiiso la dooni maayo gooluhu iyo wuxuu qaato xisaabaadka guudna waa tegi kartaa saad cala shiroo maaliyadana u tegi kartaa bankigana waa tegi kartaa waxaad la waran kartaa gooluhu lacagtu qaataad la waran xildhibaan kartaa wuxuu qaataad la waran kartaa marka maalin walba waxaad aragtaa 4 kun buu qaataa 5 kun buu qaataa qofka fikradaha dadka faafiyaana waa dadka xukuumaddu lacagta siiso qofun narrative-ka u abuuran qof kastaaba aragtida wuxuu jecel yahay haddaan imika anugu ka sheekeeyo waxbaa la cunayo waxbaa la cunaa ka sheekeeyo waxaa laga yaabaa waa qofun hadduu alla kasuu wax cun laha raadinaya oo si fool xun ku raadinaya marka waa aragti aad u liidata dhaqankeedana ma yahayn beerta iyagoo la madaxweyne waxaas u qaata beerta iyadoo la wasiiradu intaasay qaataanoo gunno iyo mushaar u qaataanoo kharashka horsocodsiinta maamulamada dadkan propagandada ku sameeya golaha ama dacaayadaha u jeediya waa dad xukuumadda dabada ka riixay dee walaal kumaba odhanaye 100% baan ku leeyahay hadda bal tirib magacyadooda hebel iyo hebel haddaad u tiriso waa dadka garya waxaadna ogaataa berigii halkaa lagu jiray laascanood dagaalada ka socdeen waa kuwa tifiyada taagnaa kuwa imika caaye buura ma caaye yidhahda buura maxay isla waalaysaan riwaayad baa haysaa waa kuwii berigaa lahaa madaxweyne fasax ciidamada waa kuwii lahaa berigii la odhan jiray fasax soo garamaysa waa kuwii waxaa lahaa unba imakana waxaa akhriyay oo dadka xumaantooda ka shaqaynaya ummaddan isku soo dhawaanayno madaxweynuhu nasiib xumada ku dhacday waxaa weeye talada wanaagsan inaad heshaa oo qof talo wanaagsan ku siiya aad heshaa waxa weeye hibooyinka ilaahay bixiye ka mid inaad hesho qof aan talada xune aad haysto kaa dhiganoo kale madaxweyntaas waa khaldanta talo wanaagsanna kuu tilmaamina waxa weeye waa guuldarooyinka qofka hogaamiyihii uu la kulmo weeye marka anigu waxaan u arkaa madaxweynuhu wixii qaban lahaaba tiim wanaagsan oo la shaqeeya oo wanaagsan mu heli wuxuu helay madaxweynuhu dadun aan war wanaagsan noo keenin war saxan noo keenin war runna noo keenin dabeetana dee ku camalfalka warkaa ku camalfalaa waxaa ka soo baxaya dhaliilaa ka soo baxaya marka aad baan dee uga xumahay oo inuu wararkaa iska hubsadana waa kula talinaya madaxweynaha safarkaaga dibadaan u tegi doonaa xildhibaan mustafa khayr ood ku mahadsantay m t foreska aad siinayso laakiin inta ka horeysa doorashooyin saara somaliland ka dhacaya urka ka oo adigu aad ka mid tahay xildhibaanada ka tirsan iyo xisbiga waddan isbahaysi baa dhex maraya sidaad u aragtaa dee anigu waxaan u arkaa waa soo dhaweynaya doorashooyinka somaliland iyo codaynta maxay ka bedeli kartaa dee waxay ka bedeli kartaa la arki doone weeyo anigu dadkii ugu horeeyey ka shaqeeyey baan ahaa dadkii ugu horeeyey ka shaqeeyey ayaan ka mid ahaa inay isbahaystaan 100% qofkii ugu horeeyey labadii qofkii ugu horeeyey ka shaqeeyey baan ka mid ahaa in isbahaysiga sir galo waana waxay ka muuqan doontaa sanaaduuqda codka marka lagu riday ka muuqan doontaa natiijada waxa weeye lagu kala guulaysto ay ka muuqan doontaa waxaana rajaynayaa in hadduu alla ka dhigo systemkaasi hadduu alla ka dhigo halkaa ina gasoo afjarmay idab ilaah muddo 80 cishaaba dalka dibaddiisa ku maqnayd oo dalka ingiriiska joogtay bal safarkaagaa ka waran maxaa kugula yaabadnaa maxaad kula soo kulantay nolosha iyo sida dadkaasi ay u nool yihiin markaas barbar dhigto iyo horumarku siduu uga socdo iyo dalkeenna maxaa talooyin jeedin lahayd luqmaana horta dalka waasaad sheegtay 3 bilood wax dhiman baa ku maqnaa meeshaa waxaa ka jirta dad badan oo qurbajooga qurbajoogii somaliland ayaa degan waxaan u malanaya UK waa dalka ugu badan qurbe ee qurbajooga reer somaliland degan yihiin dadka hadduu alla ka dhigo waxyaabo taban iyo waxyaabo toganba waan ku arkay wax dhaliil leh iyo wax hadduu alla ka wanaagsanba soo dhaweyntooda qadarintooda iyo ixtiraamkooda wuu fiican yahay dadku soo dhaweynaya dadku ixtiraamaya dad hadduu alla kaga kula sheekaysanaya talooyin badanna de waa laga helayaa oo hadee jeer iyagu maadaama wax daawanayaan talooyin badanna waa laga helayaa dhaliilo ku saabsan golahayaga dhaliilo ku saabsan guud ahaan dalka xukuumadda dhaliilaheedu tiro beelay waxaasoo dhan de way kula wadaagayaan nidaamkan waxaadna moodaa hadduu alla ka dhigo wararkuna say u gaadhaan waa war jectaday baa gaadha war aada u jectadayoo dee laga yaabo in waxa weeye sugnaashihiisuna aada u kooban yahay ayaa gaadha waxaa kaloo duruufaha ku jira ka mida qaybsanaanta dalka ka jirta qurbihii wey si weyn bay u taabatay way taabatay taasina waxaa weeye khatar ku tahay
in dee jiritaankii dalka iyo aqoon raadiskii iyo si loo raadinayay bay ay dee khatar ku noqon kartaa. walow muddadii u dambeysay iyo 18 May u dambeeyey si weyn looga wada qayb qaatay oo hadduu alla ka dhigo si hal dabala looga wada qayb qaatay. xasiloonidii siyaasadeed dalka jirtay baa taabatay, qurbahana taabatay. dadkaasi waxaa weeye dad conceptka laga haysto marka dalka kala joogo iyo way kala duwan yihiin. dadkaasi waa dad naftoodii la tacaalayo kadeedan oo hadduu alla ka dhigo noloshoodii iyo dhaqaalahoodii yaraadeen oo hadduu alla ka dhigo dee qurba joog bay inagu aragnaayo. qurba joogga marka la arkay waxaa la moodayaa in hadduu lacagtii taltala la moodaya, laakiin noloshan kalkii jirnaaba dhaanta. tan hargeysa talama ayaa dhaanta. qof waliba ordayaa, ciyaalkii baa lala kadeedan yahay. dee duruufaha dhaqaale yaraanoo jira iyo duruufo dadkoodii iyo maganu noqday dadaan waxa weeye aanay diinna la ahayn, dhaqan la lahayn. waxa weeye ciyaalkii ay halgan ugu jiraan ilaalinta diintoodii, dhaqankoodii, eryadka noloshoodii ay ugu jiraan. markaa wallaahi waa duruuf aad u adag weeyo, qallafsan weeyo. qofka aad ku aragtaa wuxuu ku odhanaya, dadka qaar baa ku odhanaya, ni wallaahi haddaan waxaan ku guuraba hayo aan ku guuro oo noloshayda ku maamulo oo aan bariiska ciyaalka meel aan uga helay aan helayo maalin ma sii joogeen buu ku odhanaya. markaa duruuf wey dad dee nolol fiican ka sameeyey, wax bartay oo mutacalimiina oo si wanaagsan wax bartay oo dee nololka meel standard ka gaadhayna way ku jiraan. marka dabaqaday dee kala leeyihiin. waa si dad niyad wanaag badan ka muuqdo, dalka lexjeclo badan ka hayso, is-eryadkaa dalka ka jira iyo isku jawaabka iyo waxa weeye waxyaabaha tifiyada ka socdaana dad badan way dhibayaan. qalbigoodu wanaag badan ku dareemi maayo. waxay arkayaan ay ku odhanayaan niyo cadowgiina arki maysaan idinkaas ku muuqda. waxaana wax badan baa dee ka jira, wax badan baa ka jira. marka dee waxaan rajeynaya iyaguna inuu nolosha ay ku jiraan ilaahay u dhib yareeyo. inaguna hadduu alla ka dhiga dhaliilahana aniguna iyaga markaan u tago dee waa ku miisayo, iyaguna dhaliisha aniga igu miisayeen. annaga ku miisay waxaan ku lahaa dee berigii hore qurbaha waxaa ka iman jiray dadka noloshooda wax laga bedeli jiray, biilal baa ka iman jiray, ka ugu yari dee guri yar kasoo dhistaa ka iman jiray, dhaqaaluhu wax kasoo kordhin jireen. dee iminka qabyaalad baa naga timaada noo jira iyo facebookris iyo youtubers baa naga imaada. marka iyagana waa dhali, iyaguna dee waxay lahaayeen adeer dalkii baydun baabiisay bay lahaayeen. marka dee waanu markaanu adigu isku baandhayno waxaan la war waxma wada qabsanaabaa talada kusoo ururaysa. marka insha allah bidmillah laakiin wanaag badan baan iyagana u rajeynaya, inaguna inoo rajeynaya. xildhibaan mustafa khayraye waad mahadsantahay xildhibaan. MMTV kaaga mahadnaqaya safarkaa kadib inaad waraysiga ugu horeeyay hargeysa ku siiso muddo dheer aad maqnayd. aad iyo aad baad mahadsantahay daawada. intaas ayaan kusoo afmeeraya barnaamijka fagaare MMTV. luqmaan maxamed farax iyo bahda MMTV waxaan ka tegaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala. aad baad mahadsantihiin MMTV.